yahuud baa ina ictiraafta wayaab waxaase ka sii yaab badan in safaaradda aan geysanay qudus aan geysanay macnaheedu waxa weeyaan yahuuddu iyagaa iskale baytulmaqdis wixii dhacaya ha ka dhacaan wallaahi haddii kurkaana lagu gooynayo haddii diyaaradaha droonka israa'iiliyiintu hargeysa gudahood lagu dilayaan lan nughayir wala nubadil bedeli mayno mowqifka shareecada iyo diinta iyo caqiidadu inoo yeelinayso war ilaahay diintiisa ku dhaqma war ilaahay diintiisa ku toosnaada war adduunkan waynu ka tagaynaa allahumma fashhad allahumma ballaghtu fashhad ilaahu markhaati ka ahu بسم الله الرحمن الرحيم وعنو wanaagsan qiyaarta hawada ga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadadahan kale ka daawataan page-kan muqaal wareedka intuu saanayo aduubeeyna idmo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan maamulka Somaliland hogaamiyahooda Cabdiraxmaan Ciro oo looga digay inuu saxiixo barnaamijka loo yaqaano Abraham Accord kuwaas oo dalal hore u saxiixay oo muslimiina ay sheegeen inuu qiyamka iyo dadnimadooda iyo muslimnimadooda oo si weyn uga soo horjeedo intaan ku soo gudbin qodobkaasi oo faahfaahsan fadlan muuqaalka leeka saar oo share garay oo geey cid u baahan inay xogtan Abraham Accord ee la doonay in la saxiixo inay wax ka ogaadaan hadda inta sameeydaanba aad baa ugu maasantiina aynu ku bilownaa saaxiibayaal madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago magaalada Tel Aviv ee dalkaasi Yahuudda Israa'iil oo looga digay inuu saxiixo waxa loo yaqaano Abraham Accord sida wararka loo dhigay Ciro ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho mas'uuliyiinta Yahuudda Israa'iil kuwaas oo diiradda lagu saarayo xiriirka labada dhinac iyo arrimaha xiriirka ee cadaadiska iyo isdabajooga ee gudaha ka soo wajahaya maamulkaas hogaamiyaha ayaa tan iyo markii ay soo baxeen talaabooyinka lagu xoojinayo xiriirka Yahuudda Israa'iil dhinaca kale waxa isa soo taraya digniinaha loo jeedinayo Cabdiraxmaan Ciro ee ku saabsan suurtagalnimada in la saxiixo heshiiska Abraham Accord kaas oo dalal dhowr ah oo Carbeed oo hore u saxiixay Yahuudda Israa'iil kuna biiray si loogu cadaadiyo xiriirka u dhaxeeya Yahuudda iyo wadamadaas si kastaba ha ahaatee dadka ka soo horjeeda ayaa ku doodaya qaar ka mid ah dalalkii hore u saxiixay inay dib uga laabteen kadib markii ay qiimeeyeen mowqifkooda ku aadan heshiiskaas qaar ka mid ah dalalka ayaa soo jeediyay tallaabadaas ay ku doodayaan in heshiiskaasi uu ka hor imaanayo qiyamka iyo mabaadiida ay aaminsan yihiin bulshada muslimiinta ah iyaga oo ku baaqay hogaamiyaha Somaliland inuu ka fogaado tallaabo kasta oo khatar rasmi ah gelin karta dalkiisa oo xiriir u la yeeshay Yahuudda Israa'iil sidoo kale culimada iyo aqoon-yahanada ku sugan deegaanada Somaliland ayaa la sheegay inay si cad uga hadleen safarka la qorsheynayo iyaga oo muujiyay walaaca ku aadan saameynta siyaasadeed ee bulsho ee ka dhalan karta barnaamijkaas haddii uu Cabdiraxmaan Ciro isbaqiiq iyo indhalaanta uu ku saxiixo isagoo ninkaas iyo ixtiraafku lugaha ka galay sida kasarkii oo kale wixii ka soo cusubnaada muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaan fadlan muuqaalkan leeka saar oo share garay